daawadayaal waxaan doonayay inaan warbixin kooban aan markaas idinka siiyo ninka markaas lagu muransan yahay ee kooxda al-shabaab iyo sidoo kale daacish lagu tuhmay sidoo kalena dil toogasha lagu xukumay magaciisana la yiraahdo Suldaan Lahoor oo markaasi magaalada Boosaaso maxkamad ku taala ay ku xukuntay dil toogasha isaga iyo sidoo kale afar kale oo markaasi la sheegay in ay dad badan oo Soomaaliyeed ku laayeen magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. haddaba warbixinta waxaan ku eeganaa ninkaas waa kuma Suldaan Lahoor waa kan muuqaalkan aad halkan ka daawanaysaan weeye. Suldaan Lahoor waa nin markaasi aftahana waa nin cajiiba sidoo kalena ku noolaa in badan magaalada Boosaaso. waxaa la sheegay in kooxdan tiraba 2 jeer loo qabtay ilaa 3 jeer oo labadii jeer ilaa 3 jeerna waxba lagu waayay waa sida uu isagu sheegay maxkamadda qudheeduna ay sheegtay. haddaba waxaan markaasi wada daawan doonaa waraysi ay VOA-du ka qaaday waraysigaas oo uu isku baryeelay waa isagu siduu sheegay weeye isaga ayaa isku baryeelay wuxuu yiri anigu wax dambiye ma lihi maxkamadana waan tagaya. muuqaalkan ayaan daawan doonaa kadibna waan isu soo laaban doonaa. sidoo kale intaan muuqaalka daawan waxaa jira muuqaal uu sanad ka hor duubay kaas oo markaasi uu ugu abtirinayo ama uu markaasi taariikh ahaan u hayo waa sida uu isagu sheegay uu taariikh weyn oo fac weyn oo daarood uu ka hayo bal aan taa qudheeda marka hore wada daawano kadibna aan u gudubno waraysiga. bismillaahi raxmaani raxiim. ninka idin la hadlaaya waa ninkaas inta idin sheegay Suldaan Lahoor daarood 5 buu dhalay haddii xaqiiqo aan sheegano 12 buu dhalay lixdu ma farcamin. Suudaan iyo nimanka ku maqasheen weeye Nigeria iyo Morocco iyo Zimbabwe. 5 dhaqan waa Kablalah iyo Sidi iyo Tanadi iyo Yusuf iyo Awtable. Kablalah baa 2 dhalay Koombe iyo Koomadi waa ogaadeen. Kabla Koomba 6 dhalay wuxuu dhalay Harti Koombe, Geri Koombe, Jiiraan Koombe, Harle Koombe, Saleebaan Koombe. nimankaas waa 6 Abdi Koombe oo Jambeela. dad baa waxay dhahaan ma jeerteen ama Harti tumaala la dhashay hagkeeno ninka buuga haya ma jiro kuwa ma ku jira waa maya. Harti baa idin haray 8 buu dhalay. dadku waxay yaqaaneen 4 ducaysa 4 diritada ay xalaasha maxaa loo aqoon waayay waa kasdiqada geesa guul liiban gashay iyo guud Harti Ahmed iyo Maxamed iyo Saciid 8 daaweey. جلتين بعورت فيها صورة لح بودر عاوي وبيني طبعا تردار واصل يهودا صوصعو هل كهدية يجوكتي عاوي وحودر وبيني وحودر داموين صوصعو وحن كسوق على يويل كهدا إلى الله يا مجد عيسى وين علي آدم عمر محمد وعلي محمد ولا شيء نوح محمد ولا شيء محمد ومحمد إسماعيل ومحمد عويهان عمر ليلان وعويهان وعلي سليمان محمد إبراهيم من نبي ترجع لي نبي دور ترى هل كان مركو سوي نبي دور ترى كي أنا وعد دور ترى بارا ما قاعد يقول سعيد سونا هو حسن حسين محمد وبدل المجاه واقوة ترى وين حجيل وين ولا يلا إذا أنت يجي حجيل أنا شيء تحت أنا ما رح حجيل سقال بدل على كم جيران ومجيرتين هذا كيو إذا دافع ترى وين حجيل وين ولا يلا وين صورة وين آوي وين مجيرتين وين هرتي وين كومبي وين كبله وين دارود ودارود عبد الرحمن عقيل بن عاد بن متراكت بن شيش بن آدم كنت ترابا كن فيكون من ماء حمامين بالسرسال من قدرتي لله تعالى ويلكي هذا الكقبع وحصو عيات الدبع يحضر يشن ابر لبو تضباط يشن سلطان لاهور. السلام عليكم ورحمه الله. عبد الرحمن شروع او سعيد لا سيدنا ولاهور maxaad u soo wacday VOA waxaan u soo wacay 2 qodob. labada qodobka aan horeysiinaya fiyoda iyo caalamka u sheegaya waxa weeye waxaan ahay nin shakhsi ah oo cadaalad xumo lagu kacay una dhashay gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Bari ee Boosaaso aniga oo tuulooyinka ay xukunto tuulo kamida jooga maxkamadan tagin iyo jeel aan lagu xirin baa la xukumay dil baana lagu xukumay maxkamadna leeyma geyn jeelna leeyma geyn gaadiyahan jooga waxaan ka hadlayaa cadaalad xumada lagu kacay baan caalamka u sheegayaa islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo arintaas baan fiyoda u sheegayaa waxaa jira rag
maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ku xukuntay waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay arrintaas maxaad ka leedahay kama midihii ururka la dhawaashada baan ka mid ahayn dad baan u geyn ururka la yiraahdo daacish baan ka mid ahayn dad baan u geyn si toos ah ula shaqayn si dadbanna uma shaqeeyo banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan nimankaasna isma naqaan waxaan u dirana ma jiraan banaankaan ka ahay laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yiri kaalay oo garbax sharcigana hor imow oo aad diiday laamaha ammaanka iyo dawladda Puntland falka noocaasa nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yiri kaalay arrintaas lagu hayaa garbax ma jirto waana beeniyay waxna kama jiraan hadda diyaar ma u tahay inaad sharciga hor timaado oo aad garbaxdo hadda waxaan diyaar u ahay inaan sharciga hor imaado oo waxa ariga la igu wato iyo wixii waxa miiray kullaan ka doodo oo sharciga islaamka hortiisa imaado baan diyaar u ahay cadaaladayda la sugo marka wax xiriir oo idin dhex maray iyo wax shaqo oo idin dhex maray ragga ma jirto wax la dhex maray iyo wax shaqo iyo aqoon aan isu leenahay midna ma jiraan arrimaha hadda lagu eedeynaya Cabdiraxmaanow ma jirtaa in laamaha ammaanku ay kugu eedeeyeen oo aad xabsi u gashay hadda ka hor arrimahaas hadda ka hor 3 goor baa la igu eedeeyay waa la igu xiray laamaha ammaanka iyo sharci marintoodaba kullah way soo maray waxna waa la igu waayay markii ugu dambeeyana 2021 bishii 7 bay ahayd banaanka uga soo baxay kadibna hooyaday xanuunsatay iyo baadiyaan soo jiray intii 8 bilood ayna baadiyaan u badnaa halkaas ay noo joogtay laamaha ammaanka ee Puntland xagee ku sugan tahay Cabdiraxmaan hadda waxaan ku suganahay oo aan u dhashay gobolka bari ee Boosaasan ku dhashay tuulooyin ay xukunto oo jecel la yiraahdo oo aan degaan u leenahay oo aan deganahay hooyaday joogto reerkayguna joogo oo kala la yiraahdo baan ku sugnahay ateenku guriga kama dhaco laakiin saacada loo socdaa halkaas aan degaan u leeyahay halkaas aan ku sugnahay marka laamaha ammaanku waa wacnabay ku dhaheen adiguna waxaad tiri ima wicin goorma ayaad imaanaysaa magaalada Boosaaso oo aad garbaxaysaa haddii rabbi idmo oo xaq ilaahiga ay ka noqoto waxaan jeclahay sida ugu degdeg badan inaan u imaado gobolka bari ee Boosaaso halka hawshu ka dhacday ee aniga la yada baraysay bal haddii aad bulshada la wadaagto maxaad ka shaqaysaa adiga shaqadaadu maxay ahayd shaqadayda waa la og yahay Puntland 1986 baan shaqo kaarinima ka bilaabay baabuurta aan rararo baaka oo dulaal baan ahaa leysan baan leeyahay laba wasaaradoodina dawladdu ka kooban tahay wasaaradda dakhliga wasaaradda khaarijiga daakhiliyada ahaa anigu oo leysankeeda haysay shaqadaydu taa weeye raggan dareewaliin bay u badan yihiin meelaha aad ka shaqayso oo ayay iyaguna u baxaan oo xamuul u qaadaan marka aqoon ma isu leedihiin waa badan yihiin baabuurtu ama degmada ama qabaa'ilku iska badan yahay kuwa aan aqoon isu lahayn iyo kuwa aan aqoon isu leeyahay waa jiraan balse iminka nimanka xiran oo afarka ah oo aniga igu been abuurtay waxna kama aqaan aqoon isu leeyihiin mobilka ballaaran anigu mariyo sawirada iyo Facebook gale kayga sitaa Boosaasa dad iga soo wacay oo shacaba wax la yiri ragaas lagu daray toogashaana ku aqoonta arrinkaas waxaan u arkaa inuu yahay xaq darro baadila oo waxaan anigu afkayga ku qiran oo isla soo taagin oo saldhiga qoran wala saldhiga ka horan oo warqad ku qoran oo maxkamad lay keenin oo heer koowaad iyo heer labaad iyo heer saddexaad ana ka qiran waxaan u arkaa cadaalad darro
iyo daawadayaal waraysiyada dhammaantood wada daawateen baan jecelahay. ninka Lahore, Suldaan Lahore waa ninkan, sidoo kale muuqaalkiisa oo la waayay waxaa noo suurooday inaan internetka ka helo oo markaasi aan internetka ka helo. maxkamadda qudheedu waxay baadhaysay sawirkiisa, inkastoo isaga qudhiisu sheegay inuusan facebookna isticmaalin, sawirana uusan galin, balse muuqaalkan ayaa laga hayaa. Suldaan Lahore waa ninkaas. maxkamadda ayaa waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo markaasi aan racfaan lahayn. waa sida ay iyaguna caddeeyeen 4 qof oo iyaga markaasi dil toogasho lagu xukumay oo sheegay in Suldaan Lahore uu markaasi shabakadooda ka tirsan yahay. haddaba daawadayaal, ninkan waa nin noocaasa. wixii warar ee kasoo kordha arrintaasi halkan ayaan dib u soo gelin doonaa. fadlan subscribe noo saara, sii share gareeya, Soomaalidaada kalena gaadhsi si ay u barato Suldaan Lahore.